marka hore waxaan leeyahay assalaamu calaykum ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan marka xigta waxay u jeedaan waxaa ila taagan alfanaan cabdirasaaq eeke kalxiye oo fanaaniinta muqdisho ka mid ah waxaanu ku sugannahay magaalada Kampala gaar ahaan Mwingi Beach eeke Kampala wuxuu imaaday arrimo fara badan oo ka mid yihiin fanka kor u sii qaado maadaama ay ciid tahay waxaan rabnaa inaan kelib yar oo kooban aanan badanaynin 3 daqiiqo iyo 2 daqiiqo inaan weydiino sababta halkan uu imaaday iyo waxyaabaha uu damacsan yahay inuu u soo bandhigo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kampala bal eeke ku soo dhawow aad u mahadsantahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ku sheegayaa insha Allah in bilaahi imtixaan uu imaado howlo fara badan sida arrimo family arrimaha kaleeto iyo arrimaha faraha tan fanka oo aniga i tusayso insha Allah waxaan rajaynayaa goordhow inuu soo saaro hees kala duwan oo aad u qurux badan fiidiyooyin heer sare ah weliba magaalada Kampala lagu duubaayo barnaamijyo aad u macaan badan showyo bandhigyo iyo fan fantastic waa gartay showga ugu horeeya goorma qaban doontaa showga ugu horeeya waxaan rajaynayaa habeen dambe insha Allah maalinka labaad ciida habeenkeeda insha Allah marka ma heesooyin cusub aad ugu tala gashay inay jira qaabkee heesooyin isugu dhex tiran yihiin heeso wadani heeso jacayl maxaad u haysaa waa jiraan heeso jacayl aa jiro weliba dan magata imaaday weliba dan maa sameynin laakiin inta hadda qorshaha ku socday heeso jacayl insha Allah after iidlaala wax yar naga maqalsii heesaha mid ka mid heesaha mid ka mid ah haddii aan soo furto أبن كربا عمر كلا صبحي كلا يوب الدبي قلبي جندي لندرتا كلا يوب قلبي جند الدبي قلبي بندويني يا إن شاء الله قلبي بدون بندويني اوكي سو دو واي نو مالك عيد لبعض ان شاء الله اي كسو دو كان ثانك يو